soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo filim kale oo aad markaa ayadaha u qiimo badan. filimkan waxaa loo magacbaadaa dheer, waxaa la soo saaray 2019 waxaa daawatay malaayiin, marka ayadana aad ay u xiiso gelisay. inta aanan u guda gelin filimkan aad u qiimo badan aad ka heli doontaan. marka hore waxaan saaranahay wadada 30,000. fadlan nala soo raax diyaaradahan oo ka mid noqo asxaabta nagu taageeraysa in aan gaarno 30,000 in yar gudaheed. waxaad nagu taageeri kartaa share garay, like garay, comment garay, asxaabtaada la wadaag. waxaan kaa codsanayaa in aad adiga kaliga inoo keento 5 saaxiibo ah oo halkan nagula saaxiibta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وحنا كينغ سولفر واحد يقدر ونسان كينغ سولفر برو. King Solver Pro. وهي أصحابتي دقاليقة اسكو سو نقشون أكسن. jaya ayaa xaskiisa u sheegaya bertole in uu leeyahay shir aad u muhiimna tahay inuu caawa xilli hore seexdo. wuxuu waqti la qaadanaya labadiisa gabdhood si uu macsalaamay maadaama uu doonayo in xilli hore uu seexdo. jay xaaskiisa ayaa waxay dareemaysaa banaanka socod, islamarkaana waxay is leedahay talo banaanka maxaa jira, balse sidaa uma sii fiirsanayso. jay asa ayaa isagoo dhigiisa isagoo dokumentiya raadsanayo shirka biro muhiim ah qaato ayaa wuxuu dareemayaa socod banaanka ah, balse islamarkii waxaa kusoo dhacaya in warqaa uu joojiyay uu bal isku dayo baawarka banaanka u yaalo inuu baakin fiican gashto, laakiin balse irada ayaaba xiran baa qufulan. wuxuu raadsanayaa furaha soo iradu fur, laakiin wuxuu arkayaa in iradii bay furan tahay ama lasoo jebiyey. marka qoraa dareemaya in qof uu gudaha ku jiro, isla markaasna wuxuu arkaya xaaskiisa oo suuxsan ama dhaawac uu soo gaaray. wuxuu raadinayaa gabar ka mid ah gabdhihiisii, isagoo raadanaya wuxuu ka arkayaa sariirta ama miiska hoostiisa iyadoo naf ugu dhumatay. islamarkiiba nabar weyn ayaa madaxa ugu dhacayo, waa uu dhacayaa isagoo mir daboolan oo madaxa jawaan kaga jira ayuu soo miirkacaya. jaya ayaa aad ula yaabay islamarkaana ka argagaxaya qolka noocan ahay ee la keenay. wuxuu arkay gabar lagu magacaabo Kat, sidoo kale Adam, sidoo kale Paul. jaya ayaa ah qofkii afraad ee halkan u keeno afduubaha. Adam ayaa ah kaliya qof madaxa dhaqaajin kara, indhahana nuxnuuxin kara, maadaama jirkiisa iyo xubnihiisa gebigoodba uu la baxay afduubaha. jaya ayaa weydiinaya wiilasha halkan ku jira sababta marka ayadaa u sameynayo afduubaha sidan, balse waxay leedahay hata annaga maan ogeyn. Adam wuxuu leeyahay waxa kaliya ogaya waxay tahay waxaa laysoo afduubay anigoo security ah. sidoo kale gabadha Kata waxay leedahay aniga waxaan gabar saloon ka shaqaysaa, laakiin ma garanayo halkan waxa uu imaanay afduubaha sababta inuu soo afduubtay. jaya ayaa wuxuu arkayaa baaldi dhiig ka buuxa oo dhex yaala qolka, markaasuu aad ula yaabaya islamarkaana cabsi badan oo dareemayaa. qolkii yaraa leerkii ku jira marna daarmaya marna damaya, taasoo gebi ahaan bay cabsi ku abuurayso. laakiin jay ayaa waxaas cabsi marnaba aan u arkin maadaama uu halkan ku cusub yahay, ciqaabtana uusan garanayn. wuxuu isweydiinayaa sababta afduubuhu uu halkan u keenay jay. islamarkiiba sida caadada ahayd daaqad yarba waxaa lagu soo tuurayaa cad hilib ah, intaas bay kala qadqaadanayaan islamarkaana jab yar bay u tuurayaan ninkii jay ahaa. jayo aad ula yaaban baa jabka yaraa ku celinaya, intaad dantaan idinka isticmaala ayuu leeyahay. taasna waxay cabsi gelinaysaa ninkii Paul ahaa. intaa kadib jay baa wax isku daya inuu halkan isku dayo wada kasta oo uu ku bixi lahaa. wuxuu arkayaa darbiga u dhowaa in meel yaroo ka jeexan yahay, islamarkiina wuxuu bilaabay inuu farihiisu isticmaalo si uu ugu jaro sida Prison Break oo kale, balse markii waa uu dhacayaa ciddada ayaana ka jabaysaa. wuxuu isku dayayaa in uu raadiyo wax uu halkan ku furo, isagoo dhulka qodaya ayaa wuxuu arkayaa madax mar hore ay ugu dambeysay inuu noolaado. jay oo yaaban ayaa wuxuu sakadiisa ama lanfeelan ku arkayaa in CC camera meesha ku xiran tahay, islamarkiina wuxuu fahmaya in afduubuhu uu daawanayo. halkaas ayuu kasoo caynayaa isagoo hadaladiisu ay ka mid yihiin aaway aniga xaaskayga iyo caruurtaydii. taana waxaa cabsi ka abuuraya Paul. wuxuu leeyahay warhoy ma joogtido. intaa kadib waxaa aad uga caroonaya falalkan qabdarada uu sameynayo afduubaha oo la magacaabo Frankenstein. afduubaha ayaa sita maskaro si aan loo fahmin wejigiisa. jay ayaa wuxuu weydiinaya afduubaha aaway aniga xaaskayga iyo caruurtaydii, laakiin Frankenstein wax jawaab ma siinayo ninka la yidhahdo jay. sida caadada ahayd wuxuu dhulka seexinayaa Paul, wuxuuna leeyahay gabar lagu magacaabo Kata kaalay oo cad hiliba ka jaro ama ka goo ayuu leeyahay jirka Paul. islamarkaana sidaas salamada wuxuu midada u tuurayaa jay. wuxuu leeyahay adigona saas salamada sameey, balse jay waxaan aqsan waa isku dayaya inuu dilo ama midada ku duro ninka la yidhahdo Frankenstein. maadaama gabadha Kata ay awood u yeelan weyday inay jirka Paul jartay cunto, waxaa jaraya Adam, islamarkaana wuxuu ku muquuninayaa Frankenstein in uu awood ku siiyo cadka hilibka ay u cunto gabadha Kat, islamarkaasna way laqaysaa. Frankenstein markuu baxo, Kat ayaa soo tufaysa hilibkii ay laqday. jay ayaa wuxuu leeyahay sakiintii ka dhacday Frankenstein wuxuu iska jarayaa xaraga, kadib isoo isku dayay inuu baxsado. waxay isqabanayaan ninkii Frankenstein ahaa. jay
ayaa wuxuu isku daya inuu ka baxo saqafka hore ee dhismaha, balse waxaa ka guuleysanaya ninka Ferguson ahaa. Wuxuuna dib ugu soo celinayaa qolkii yaraa ee caabidka ah ee kulaylka badnaa, wuxuuna ku xirayaa silsilad markaan uu ka baxsan karin. Waxaa soo laabanaya Frankenstein oo aad u xanaaqsan. Wuxuu buurs ama dube iyo musbaar u dhiibayaa Adam, wuxuuna u sheegay inuu gacmaha darbiga kula dhajiyo. Halkaas waxaa ku meel daboolmaya ninka Jay ahaa. Jay oo awood isticmaalaya ayaa darbiga gacanta xoog ugu soo fujinaya, halkaasna gacanta ay ugu dul samaysaa. Jay oo xanuunsanaya ayaa wuxuu dareemay ninkii Paul ahaa inuu doonayo in wax u sheego. Jay aad ugu soo dhawaanaya Paul, laakiin Paul aad afka u kala qadqaadaya ayaa isku day in wax u sheego, balse Jay ayaa fahmaya. Wuxuuna fahmayaa in uu tilmaamayo dhabarka dambe Ferguson inay kaga sawiran tahay shabad ah cagta ama qoobka ama lugta faraska. Filimka ayaa waxaa dib inoola celinaya markii ay Jay iyo saaxiibadiisa ay caruurta ahaayeen. Waxaa u imaanaya wiil yar oo iyaga da'dooda ah oo lagu magacaabo Dominic. Saaxiibadan ayaa kala ah Kat, Paul, Jay, sidoo kale Adam. Maadaama wiilkii yaraa uu ka codsaday inuu kusoo biiro, waa challenge garanayaan. Kat ayaa waxaa ku gelinaysaa bahalo yar, waxayna ku qasbaysaa inuu cuno. Sidoo kale waxay madaxa ka saaraysaa carcaaro, waxayna ku qasbaysaa inuu ogolaado. Dhagtay galaysaa wuuna cararayaa. Mar kale ay kulmayaan, waxaa markaan challenge garanaya Jay, wuxuuna ku sameynayaa labada gacmood ayuu musbaar kaga durayaa labada dhinac si lamid ah sida hadda qolka isaga loogu sameynayay oo kale. Sidoo kale Paul ayuu wax wajiga ka saarayaa bahalo yar tiro badan, wuxuuna leeyahay u dulqaado indhahanaysa kaa galin, haddii indhaha kaa galaana maskaxda ay kaa galeen waadna dhimanaysaa. Dulqaad badan samee ayuu leeyahay. Halkaas ay wiilkii u challenge garanayaan, kadibna way ku saaxiibayaan maadaama challenge uu kasoo gudbay. Kooxdii oo weli dhibaataynaysa wiilkii yaraa ayaa markan waxay ku tilmaameen in uu kan yahay tijaabadii ugu dambeysay. Waxay keenayaan qol uu leeyahay nin beerley ah, wayna isaga tagayaan. Waxaa soo haraya Jay oo ka labalabeynaya inuu baxo ama uu joogo. Kadib sababta u keenayaan qolkan waxay tahay waxay ku tuhumayaan qolkan inuu leeyahay nin beerley ah, islamarkaana xaaskiisii markay dhimato kadib noqday qof aad u xun, cunugiisa yaraana isaga gacantiisa ku dilay. Kadib waxaa u soo galaya ninkii qolka lahaa ee beerleyda ahaa. Wuxuu u imaanayaa ninka cunuga yaraa, wuxuuna dareensiinayaa qalbigiisuna ku shubaya in isagu aabbihii saxda yahay, isaguna yahay cunugiisa. Wiilkii yaraa oo isku day inuu baxsada waxaa arkaya ninkii beerleyda ah. Kadib lugta ayaa wuxuu ka gelinayaa fargeeto, wuuna aadan ayuu u canaananayaa. Wuxuu ku qancinayaa inuu yahay aabihiisa saxda ah, jecel ayuuna siinayaa. Kadib aad buu u tababarayaa. Tababar dheer kadib, sanado badan kadib, markuu wiilka yaraa weynaado, wuxuu isku dayayaa inuu aabihiis ka daba keeno. Dhaqan wuxuu kula isticmaalo, wuu garaacayaa. Garaaca kadib aad buu u xanaaqay wiilka yaraa, alaabtuu jajabinayaa. Wuxuu soo galayaa qolka markuu soo galo wuxuu ogaanayaa inuu dilay wiilkiisa dhabta ahaa, sidoo kale gubay isaga waalidiintiisa markay isku dayeen inay soo raadiyaan. Tani markuu ogaaday wuxuu go'aansanaya nafta inuu ka qaado maadaama xog badan uu ogaaday. Wuxuu sameynaa biyo kulul inuu ku rido, balse wiilkii yaraa waxa u fududaanaysaa in uu isaga biyaha ku rido isagana uu badbaado. Waana markaan markuu isku bedelayo Frankenstein, waana sababta ugu aarsanayo 4 cunug ee sababtay inuu xaaladda adag soo maro. Frankenstein ayaa qolka soo laabanaya isagoo weli uu dhig baxayo ninka Jay ahaa. Aad wuxuu ugu xanaaqsan yahay waxay ku sameeyeen 20 sano ka hor, wuxuuna ka aarsanayaa hadeer qof walba oo ka mid ah iyaga. Kadib Frankenstein banaanka ayuu u baxayaa. Jay ayaa wuxuu sameynayaa qorshe, wuxuu iska dhigaya inuu dhaawacan yahay oo kale. Waxaa soo laabanaya Frankenstein, kadib wuu ku boodayaa si inuu u dilo, balse way suurtagal weynaysaa, wuuna ka badbaadayaa. Kadib wuxuu u imaanayaa Adam si uu uga aarsado. Wuxuu ka saarayaa wejiga si lamid ah isaga ugu saari jiray bahalada si maskaxdiisa ay u cunto. Kadib bahalkii wuxuu ka dhibaataynaya isha, wuxuu ka saarayaa isha ninka Jay ah si uusan maskaxda ugu dhibaatayn. Adam oo doonaya naftiisa inuu difaaco ayaa wuxuu ku dhahayaa Jay isii midida, balse Jay ayaa dhahaya anana difaacaya. Wuxuu kula dagaalayaa midida si lama filaan ah. Midida ay waxay ka galaysaa wadnaha, halkaas ayuuna ku dhimanayaa. Gabadhii Kat ahayd ay waxay u fahmaysaa inay tahay dambi weyn. Waxay soo qaadanaysaa midida, dhuunta ayay ka saaraysaa Jay. Waxaa gadaal uga imaanaya ninkii Frankenstein ahay, wuxuuna ka qaadayaa midida, balse midida markuu dhuunta ka saaro kadib Jay ayaa u soo dhawaanaya Frankenstein. Kadib wuxuu ka saarayaa maskarada, wuxuuna la yaabayaa ninkan qofka uu yahay. Kadib toorida ayuu ka qaadayaa, isla dhaqaajinaya Frankenstein. Markaas markuu jeesto kadib dhabarka ayuu ka gelinayaa toorida. Kadib afduubihii oo toorida ku taalo ayaa wuxuu dhamaystirayaa gabadhii Kat ahayd, halkaas ayayna ku dhimanaysaa. Jay isku dayaya meesha uu ka bixi lahaa ayaa ku weerarsan dhismaha, balse waxaa ka daba imaanaya ninkan Frankenstein ahaa. Lugta ayuuna u bixinaya, halkaas waxay ku bilaabanayaan dagaal haddii iyo kow, balse waa laga adkaanaya ninka Jay ahaa. Jay aad u weerarsan ayaa waxaa madaxa laga gelinayaa, dhiig badan meesha ku jiray. Waxaa u suurtagalaysa inuu bir weyn madaxa kaga dhufto. Ugu dambeynna waa uu guuleysanaya Jay, madaxa ayuuna wuxuu kaga garaacayaa bir weyn oo meesha taalay. Kadib Jay ayaa daaqada jebinaya si uu soo baxsado.
ninkii Ferguson ahaa ayaa wuxuu soo daba cararayaa Jay si uu markale u dilo weli uu uga aarsado maadaama inta kale uu ka aarsaday. Jay ayaa waxay u fududaanaysaa in markaa midida caloosha uu ka geliyo halkan waxaa ku dhimay ninka Ferguson. Jay wuxuu wargelinayaa booliska, wuxuu soo laabanayaa gurigiisa, wuxuu imaanayaa labadiisa caruur iyo xaaskiisii. halkaana waxaa kusoo dhamaanaya filimkii aadka qurux badnaa waxayna guusha ku raacaysaa Jay iyo familkiisa. balse ninkii Ferguson ahay wuxuu ka aarsanay dhammaan saddexdii kale marka laga reebo ninkii Jay ahaa. halkaas waxaan ka dareemi karnaa cuqdada inay tahay shay aad u xun, isla markaa iyada ahna qofkii aad wanaag u gasho wanaag kugu bedeliyo, qofkii aad xumaan ku samaysana xumaan kugu bedeliyo. haddii aad walaal halkaas soo gaartay fadlan ka mid noqo asxaabtana gaarsiinaysa 30 kun ee soo raac doontan aadka u weyn ee na gaarsiinaysa 30 kun. aad mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.